iyadoo la fulinayo amarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu cafiska ugu fidiyay 148 maxbuus ayaa xeeraliyaha guud ee qaranka Saleebaan Maxamed Maxamuud uu saaka goobjoog ka noqday maxaabiis laga sii deynaya xabsiga dhexe Xamar. xeeraliyaha qaranka ayaa intii maxaabiista la xaadirinaya goobjoog ahaa isagoo qof kastana weydiinaya inta uu xidhnaa iyo inta sane ee lagu xukumay. sidoo kalena waana iyo dardaaran siinayay in aanu mar kale gelinkiisu ku mutaysan karo xadhi kale. maxaabiista nasiibka u yeeshay in lagu sii daayo cafiska uu fidiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa warbaahinta qaranka la wadaagay dareenkooda ku aadan in ay dib u helaan xorriyadooda, waana kuwa qaar ka mid ah maxaabiista oo wajiyadooda laga dheehan karo farxad aad u sarreysa. halkan mahad ballaaran ugu celinaya madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xeer ilaaliyaha qaranka oo runtii saakay nuski saac ilaa ay hadeertan nala taagnaa qorraxda aadna noogu dadaalay hawsheena muddo badan ka soo shaqeynaya. shaqadaas faraha badan oo noo soo qabtay mudane xeer ilaaliyaha aadaan ugu mahad celinaynaa madaxweynaheena dhammaan madaxdeena oo mahad celinaynaa cafiska ay noo fidiyeen. cafis oo mar walba aan ku taamayay oo aan ku haminayay inuu imaanay aan ka rajaynay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta yimid oo hadda macluumaadkiisa lagu jiro ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay. farxadan dareem alxamdulillah oo alla isiiyay inaan dadkayga iyo noqday iyo walaalahay iyo waalidiinteed iyo carruurteeda ku faraxsanaa 100%. meeqa ayaad kunayd oo xabsiga 6 bilood hadda 3 bilood la iska dhameystay. imisa bilood bal 6 bilood gaashaanla sare Cabdirashiid Cismaan Colow ayaa digniin iyo waana u jeediyay maxaabiista maanta dib u helay xorriyadooda isagoo faray in ay ka fogaadaan wax kasta oo horseedi kara xadhi kale. waxaan rabnaa ama ay ku habboon tahay in aad noqotaan kuwa fiican oo qarankiina la falgalo. dowladnimada dadka deeqdo, dowladnimada aad dhinac ka gashaan, canaasiirtana aad ka leexataan. taas ayaan idigu waani lahaa. nasiib wanaag xeeraliyuhu maanta wuxuu noo sheegay iyo taliyaha ciidankuha 10 ruux oo ka mid ah hadda in loo qaatay shaqaalaha dowladda. xeeraliyaha guud ee qaranka Saleebaan Maxamed Maxamuud ayaa tilmaamay in qof kasta uu ka faa'iideysto cafiska madaxweynaha waxna uu ka bedelo noloshii hore isagoo oo ku booriyay in ay ka fogaadaan waxyaabaha ay mar kale ay ku mutaysan karaan xadhig isagoo hoosta ka xariiqay in uu qof kasta ka qayb qaato horumarka dalka. dadka maxaabiista ee madaxweynuhu cafiyay waxay ka kooban yihiin dad loo haysto hanti oo xabsiyadoodii dhammaadeen laakiin hanti loo haysto hantidaasna ay kala duwan tahay qaybaheeda. kuwa waxaa loo haystaa wax $100 ka yar, kuwa dhowr $100 baa loo haystaa, kuwa 1,000 baa loo haystaa, kuwa kale waxaa loo haystaa 2,000. dadkaas xabsiyada dhammaystay oo hantida u xirnaa waxa ay tahay inuu fahmo oo nalii soo xushay inaa noqotaan dadka cafiska madaxweynaha ka faa'iideysan kara. cafiska madaxweynuhu ma aha wax qof kasta la iska cafinaya, shuruuduu leeyahay. shuruudihii inaad buuxiseen asaad ku hesheen ajarka iyo waxa laga helay inaa xorriyadaada bannaanka aa haystid oo heshidna inuu ayaga u soo laabto. waa idiin mahad celinayaa, guul baana idiin rajaynayaa dhammaantiin. ugu dambayntiina xeeraliyaha guud ee qaranka ayaa 148 maxbuus oo la sii daayay ka soo galbiyay xarunta xabsiga dhexe iyagoo oo ku faraxsan dibna ula midoobi doona qoysaskooda ay kala maqnaayeen in muddo ah. Cabdirasaaq Xaaji Saleebaan, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.